Assalaamu calaykum kulan wacan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Qasim Media kusoo dhawaada qaybtii labaad ee qisadii Jaceyl Quman iyo Qasim. Qasim isagoo iska maqan ayuu Quman ku soo jeedisay cod dabacsan. Qasim wuu naxay haddana wuu farxay oo wuu jirracooday. Kadib waxay Quman su'aashay waxa dadka ka reebay isagoo u jawaabin ayay haddana weydiisay dhowr su'aalood balse Qasim intuu qalbiga iskala hadlay ayuu go'aansaday qorshihiisa inuu caddeeyo wuxuuna yiri walaal Quman muddo sanad ahba waxaan rabay inaan kula hadlo balse iima suurto gelin hase yeeshee waxaan maanta ku sheegayaa in aan aad ku jeclahay waan ogahay in aad waddanka ka dhoofayso waxaan kaloo ogahay in ay reerkiinu doonayaan in ay ku dhisaan wiilkii aad qadada wadaagayseen hase ahaatee waxaan ahay qof ku bahliyoobay oo ilaa xad ku jecel balse go'aanka adiga iska leh. Quman waxaa ku duxay hadallada Qasim iyo kalgacalka uu la hoos joogo isla markaa Quman kuma ay degdegin go'aankee waxay Qasim u soo jeedisay in uu sheekada dib u dhigo oo uu ka qayb qaato dalxiiska. Qasim waxaa qalbigiisa saaqay dareen farxadeed wuxuuna ka ogolaaday in uu dalxiiska ka qayb qaato. Qasim iyo Quman way wada socdaan socod qabow ayay ku laafyoonayaan waxayna isweydaarsanayaan kaftan kalgacayl ka muuqdo. Iftiinka cadceedda oo jihada galbeed ka xigta dhulka dooga ah jawiga xasiloon iyo neecawda macaan ayaa muujiyay shacnigooda oo midba midka kale ayuu hoosta ka eegayaa. Waxaa kusoo lug darsaday koox ardaydii ka mid ah oo aad ugu qushuucay siday iskugu soo baxeen markiiba waxaa lagu boobay sawirro. Farxadda qosolka iyo reereynta ka muuqata waa mid saa'id ah. Wiil ka mid ah ardayda ayaa si kaftan ah u yiri dalxiiskeena waxaa aad u nuurinaya Qasim iyo Quman. Inta la qosli ayay gabar kalena tiri wacnaan lahayda hadday lamaano noqdaan. Waxay tamashlayaanba waxaa meel gaaban kaga soo baxday habar yarteed iyo wiilkii lala rabay Quman waxayna dareemeen in labadani xiriir ka dhexeeyo. Wiilkii Quman lala rabay wuxuu isku dayay inuu Quman gaar ula baxo balse inta uusan la hadlin ayay ardaydii su'aalo kala hortageen wiilkii waxayna weydiiyeen oo ay ku dhaheen ka waran siday iskugu nuurayaan Qasim iyo Quman. Isaga oo aan ka jawaabin ayaa arday kale ku yiri saaxiib hadday lamaano noqdaan sidee ugu hambalyeyn lahayd. Wiilkii markuu arkay xaaladdu halkay marayso ayuu si dhab ah u qancay wuxuuna yiri farxadiinu waa farxadayda. Ardaydii oo farxadooda xad ka dhaaftay Qasim iyo Quman dhoola cadaynta isku jaleecaya ayaa abaaro 5:30 daqiiqo galabnimo ayaa dhammaantood waxaa lagu wargeliyay in ay si degdeg ah u diyaar garoobaan isla markaana baabuurta fuulaan. Waxaa goor habeenimo ah ay soo galeen magaaladii qof walba isaga oo farxad la ildaran ayuu gurigiisii tagay. Qasim laftiisuna isagoo kolba xasuusanaya farxaddii dalxiiska isla markaana isweydiinaya jawaabta ka soo bixi doonta Quman ayuu gurigoodii tagay. Balse Quman waxaa markiiba su'aashay habar yarteed waxayna weydiisay waxa labadooda ka dhexeeya hase yeeshee Quman may u jawaabin. Markay guriga fooda gelisayna waxaa lagu salaamay in fiisii u soo baxay oo ay 3 maalin kadib ay baxayso. Quman wax walba kidis bay ku noqdeen waxayna weyday waqti ay go'aan ku gaarto. Halka waxaa inagu qaybtii labaad ee qisadii Quman iyo Qasim. La soco qaybta xigta hadduu Rabbi dhaho. Daawada haddii aad ka heshay qisadani fadlan muuqaalka like inoo saar. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe taabo furo gambaleelka si aad u hesho muuqaaladeena isla marka aynu soo gelino. Tan intaan ku kulmayna qaybta xigta nabadgelyo.